odayaal iyo waxgarad ku shiray magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa si weyn u soo dhaweeyay doorashadii uu ku soo baxay waa wasiirkii dhalinyarada iyo isboortiska ee dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Nuur sida uu Beledweyne warka inooga soo diray Khalid Maxamed Ilkaase kulankan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ay ku yeesheen odayaasha iyo waxgaradka mid kamid ah beelaha daga gobolka Hiiraan ayaa ahayd mid ay ku taageerayaan doorashada xildhibaanimo ee ku soo baxay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Nuur ee lagu doortay magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hiirshabelle isla markaana loo doortay inuu ka mid noqdo xildhibaanada dawladda dhexe ee Soomaaliya ku matalaya dawlad goboleedka Hiirshabelle waxaana ay eedayn u jeediyeen odayaashan isla markaana wax laga xumaaday ku tilmaameen hadallo ka soo yeeray ugaaska beesha iyo ugaasyo kale ayagoona sheegay inay ku faraxsan yihiin doorashadaasi wasiir Cabdullaahi Nuur loogu doortay ka mid noqoshada xildhibaanada cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya ku matalaya dawlad goboleedka Hiirshabelle anigoo nabadoonka beesha jidle waxaan ka hadlayaa ugaas wakiilka ninka sheeganayo oo ku hadlay oo meediyaha uu la taagan yahay ayaan ka hadlayaa qodobka koowaad magaca jidle waa mudaraacdo weydaan iyo mudaraacdo wey markii halkaa laga bilaabo weydaan iyo mudaraacdo markii la yiraahdo waa maruliyo darcowdire markii laba sii dhaadhaco waxaa waaye cadiya agaay ninka hadda uu sheegaya ugaas wakiilka uu leeyahay ninka jidle ma aha waxaa waaye Salebaan Caddo wey waa caddihi waaye laftii ugu hooseysay kana reema doona caddo wey ninkaas sidaas uu leeyahay xalay aan ka maqlaayay meediyaha soo ka hadlaya oo leeyahay kursiga beesha jidle ninkaas ma leh ninkaas muxuu u dhashay reer kale waa nasiib darro ma dadku kala aqoonin ma aqligiisa sidaas waxaan ku sheegay garan maayo qodobka labaad waxaan ku ceshanaynaa Hiirshabelle hadallada ay ku hadleen iyo farxanka oo uu hambalyeeyay Maxamed Nuur oo meesha ku guuleystay haddii aan beesha jidle ah haddii nabadoonka beesha jidle ah waxaan leeyahay oo guriyo marka hore waxaa la magacayga la yiraahdaa Cabdullaahi Cabdigaraah waxaa marka aan cadaynaya ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Nuur waa nin jidle ah waa nin weyteene waa nin cadad lacagtire horta ninkaas in maanta wiilkii asdalay oo adeerkiisa ay la yiraahdo jidle ma yihid la yiraahdo ama jidle ma aha la yiraahdo loola dagaalamo waa ayaan xun annaga haddaan marka odayaashii beesha Hiiraan haddii la yiraahdo annagoo ah waxaan leenahay haddii aad murole iyo agaay dad aan isjecleen adaa oo la tashtay cadaalad xumada shalay aad samaysay waa tan Hiirshabelle hadda aad ka cabani haddana aad weli daba taagan tahay war waa kula hadlaynaa oday qaali oo fiican oo jidlo maanta ugaaskii jidle la yaqaana ku dhalay shaarkiyo ka halaabayna walaal gurigaada ku soo noqon walba siyaasad iyo dib ma aadan wadin waxa ku dabageliyay xogooga yar xogo ama baabuur ka dhaxashay ama dhaqaale ka dhaxashay ba ku wadimoogi ugaaskii jidle meel uu ka dhisan yahay adiga ugaas matiidi horta ka soo tan kale waxaa la hadlayaa beesha jijaale iyo beesha baadacadaan la hadlay Cusmaan Sheekh ninka la yiraahdo oo wabarka jijaale ee hadda matalaya ee meesha joogo Cusmaan Sheekh ninka jijaale matalaya laakiin arrimaha jidle walaalo ka dhaxbax hadda taa wabarka jijaale raabtiga soo haray baadacada soo haray baadacada wixii lama maamulo waxayna la maamuli maysiin naga joogan shalayna idin sheegay berigana idin leena saacad idin leena hadda naday weeyaan waana maartay si fiican dharka u soo dhigto annagana uu ragaana oo iska kiidcin doona ugaas wakiilka jidle oo ah Cabdi Naasir waxaan u sheegaynaa arrin dhamaatay in had iyo jeer lagu dhax jiro waa laga rooyahay hawshaas annaga xagganaga iyo xag dawlad dhan walba way ka dhamaatay taaniyada koobaad horta waxaan u hambalyeeynaa ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Sheekh Nuur aan u hambalyeynaa hambalyadaas oo ah mid annaga reer jidle haddii aan nahay reer Hiiraan waxaa kaloo idin sheegaynaa odayaasha xamar joogto oo jidle iyo annaga waa isku waafaqsanahay waxaan waa wax asaga bas aswata Cabdinaasir aswata waay nimanka la yiraahdo baadacadde waxaan mar hore iyo mar dambe aan u sheegaynaa ugaaska baadacadde ee xalay na soo kiciyay ee yiri ninka la yiraahdo Nuux
كديجن ما ينهدولا حلبان نون نقول ما مركولية حلبان بعد عدم معها نوح وحلبان جدي وأنا نجاخل ضيه تنكره باش الجالي إذا كليلا اسمع الشيء بحاول أسيرها نقل لحظة خالد محمد اسماعيل كعسى شيفيق عالمي Soomaali News magaalada Beledweyne